Soomaaliya qabaa'il ku sheegay laakiin dadkaas ay ka tirsanaayeen ma jarteen warsangeli dhulbahante warsangeli भी आए थे और हबर जालो भी है habar jeclo wuxuu ku leeyahay waxaasoo dhan way yimaadeen laakiin their grandfather they pass away but this new generation they don't know about the tribes and that ones jiilasha cusub wuxuu yidhi dadkaas ay ka tegeen iminka ma yaqaanaan halkay ka soo jeedaan laakiin intii waa weynayd ayuunbaa taqaana dabeedna awowga imise qofku ka tegay dee आपके दादा जब इधर आया दादा हाँ कितना छोड़ दिए चले गए इसको आप लोग को कितना आदमी लोग थे आप लोग फैमिली से खानदान से ये हमारा जो है बाप था हसन बाकी सब मर गए थे हसन की औलाद हमें मोहम्मद अहमद हुसैन अहमद मर गया मोहम्मद है हुसैन दो ही intaas ka tegay awoogi imise qof ya waxaan ahayn ilaa afar qof way sheegay मेरी औलाद wuxuu ku leeyahay anigana hadda awlaadkaygu waxa weyn waa 8 boys and 3 girls waa 8 wiil iyo 3 gabdhood afid qudra badri all markaan anigu waxaga ku tiriyo waxaga markaan ku tiriyo iyo intuu dhalay iyo intii sii dhaleen ilaa waxaan nahay 45 qof qudra badri ma sha Allah ma sha Allah waxaad ku tiraahdaa waxa la ii sheegay isagu inuu abtirsiimadiisa yaqaano का इनको बोले मिस्टर हुसैन मशहूर है और मशहूर से भी ज़्यादा इसको आता है इसकी दादा की दादा की नाम वो हमको बता सकता है हुसैन हसन सईद नूर अहमद मगन समक्काब रोबले अबार उगाट उमर उमर अब्दुल्ला इस्माइल आर्रे सईद गरहजिद हबरनूर उगाट उमर रेर हारून अहमद माशाअल्लाह वही तो वो है यार शुरू को बढ़ते हैं अब जब आपने यहाँ पैदा हो गया और इतने पूरे नाम कैसे मालूम पड़ा आपको हमारा बाप माय फादर हाँ आबा है अया नोगिश के